haddii nin xaaskiisa uu u galmoodo in Ramadaan dindarnaagu waxaa hadda ka horna soo martay 6 mar nin yiri waxaan u galmooday iyadoo soon ah 6 maalmood marka maxaa ayay xaalkiisu noqonayaa jiisadiisu maxay noqonaysaa maxaa ninka isaga ah laga rabaa iyo gabadha falitafadal mashkuur oo maajura barakallahu fiik ahmed ikhwani bishar ramadan wa bil ibado sidaas darteed waxaa la rabaa in waxyaabo badan laga soomaa la rabaa xubnahaagu jirkaagu waa inuu soomo shahwadii shahwatul batn iyo caloosha waa in laga soomo shahwatul kalaam iyo xanti iyo isku darkii iyo umuurihi kale waa in laga soomo shahwatul farji waa inuu xubinkaaga taranku waa inuu soomo reerkaaga waa inaad ka soonto marka qofku inuu noqdo qof jawaarixdiisa iyo qalbigiisa isaga dhan sooman ayaa loo baahay marka haday dhacdo in reerkii maalin Ramadan ay isu galmoodaan sida hadda walaalka uu sheegayo oo 6 jeer nin baa yiri 6 jeer baan Ramadan reerkaygii u tagay marka hadii taasi dhacdo misalada culimadu way ka hadlaan horta waa marka koowaad dambi ay ku dhaceen labada dambi weyn bay ku dhaceen Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu toobad keenaa dambi ay ku dhaceen Allah subhanahu wa ta'ala uu toobad keenaan وعفر لهذا هو توبت كنا ومركز كوبد ومركز لبعده مالمي كتجينا وإن السوق ضيع ومركز بهذا كفارة ويبقى كفارة وين أنا ويعني وتشرب أي صارن تحي ولا جربا كفارة دي وحوية رقبة هدي لهلا إن أدور حرية طبعا لما هيو هدي له هاي لو بلاد أو حرير أمال والبقى بشهر رمضان reerkaaga u kalmootay wuxuu kugu waajibinayaa 2 bilood oo soonto oo maalin afuraynin hadii aad kiri weydana 60 miskiin waa inaad qoodiso oo aad maartay 60 miskiin aad iyagana wax siiso aad u samayso cunto mid walba habeen oo afur fiican oo helo waa laga maarmaan طيب hadii ay dhacdo marka 60 miskiin waxa la siinayaa ama waa afurinaysaa hadii raashin qalalan tahayna nisfu saac baad kiiba siinaysaa oo ah hal kiilo iyo bar ayuu maartay qofkiiba uu helayaa hadii dhacdo in 2 maalmood uu reerkaaga aad u galmooto waa 2 kafaaro oo kala duwan baa laga rabaa hadii sida ninkani hadda uu sheegay oo yiri reerkiisa 6 maalmood oo kala duwan buu u galmooday 6 kafaaro ayay noqonaysaa oo kala duwan daad macnaheedu waxa weeyaan yani 6 lagu dhuftay maartay maalintiiba uu qodinaya 60 waa inuu sameeyo ama uu maartay maalinkiiba 2 bilood uu soomo waa hawl adag weey طيب hadii ay dhacdo in yiraahdo qofku anigu waan halmaansanaa oo jaahil baan ka ahaa ama jaahiligaaba ma kaga sugnaaba halmaan ma hadii yiraahdo anigu ma ogeyn in Ramadan reerka laga fogaado ma ogeyn ba arrinta ma maqalin waxaan moodaya hawshan isku mid tahay culimada qaar waxay yiraahdeen jahligiisa loogu cudurdaaro oo maartay ninka kafaaraya laga rabin laakiin sida ahwadka culimada qaar waxay yiraahdeen waxa fiican u dadaal badan in uu iska bixiyo leeymaada kafaarada iyada gabadha iyada nafteeda hadii aan u banbaxno laba bay u qaybsami kartaa in gabadha la qasbo oo xoog wax looga qaato iyo in ay hawsh ka qayb qaadato dad is ogol ay ahaayeen hadii ay ka qayb qaadato la mid weeye iyadana dambigaana waa loo wada jiraa kafaaradana waa loo wada jiraa waa inay wada bixiyaan hadii laakiin gabadha la qasbo oo arrintu qasab ay ku dhacdo waxba tusheeda ma dambina ma saarna kafaarana ma saarna wallahu a'lam ما شاء الله جزاك الله خير شكرا الفاضل وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك الله سبحانه وتعالى حكوا عسو